habeen weyn oo kale oo taariikhda Soomaalida qayb ka geli doona waxaan rabaa marka anigoo dadka guud ahaan u mahadnaqayo haddana dadka Soomaaliyeed dadkii ugu muhiimsanaa ee hawshan qabtay oo ugu horeeyaan gabar la dhaho Muna Sharmaan oo muhiim ah gabar la dhaho Khadri Ducaali oo ayaan jirtay la taliye wasaaradda arrimaha dibadda Fawziya Xaaji Aadan oo ahayd wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliya saddexdaas gabdhood waa gabdhihii shaqada bilaabay si gaar ah ay u mahadsan yihiin kadib madaxweynihii xilligaas joogay mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo dadkii la shaqeeyay oo ugu horeeyo injineer Maxamed Cumar Saalixi Allah yarxamuhu geesi qaran waaye admiraalka la fadhiya la taliyay amniga qaranka ee xilligaas General Sheikh Ciise oo hadda safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Talyaaniga waxaa kaleeto oo ayagana badan dhinka hadda gudoomiyaha